Soomaaliga ay ku tilmaantay eygaba ugu haray sidii hooyada Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa si khatarta loo yareeyo eyga ayaa loo dirayaa sababtoo ah haddii shakhsi loo diro waxa laga yaabaa in naftiisa dhimato waana shakhsi qaali ah technician ah dawladda iyo booliiska Soomaaliyeedba ay ku baxsheen qarash fara badan in la tababaro sidaa darteed eyga ayaa loo dirayaa eyga waxaan ku garan karnaa mar alla markuu sheyga arko waa fariisanaya markuu fariisto waxay la mid tahay inuu arkay miinadii waa arkay si naftiisa loo badbaadiyo miina ayaa ku jirta waxaas loo tuurayaa waa hadiyadii loogu talagalay ama abaalmarintii wixii uu qabtay la gadoonsiin lahaa halka dadka bini'aadinka ay lacag lagu abaalmariyo u baahan yihiin eyga wuxuu u baahan yahay astaantii hadda loo tuurayay waana guulaystay farxad darteeda ayuuna la ordaya oo arkaysaan waa guulaystay lambar 1 waa la arkay waa la hubaa inay gaariga miina ku jirto ama walxaa qarxa ay ku jiraan ma aamini karna hal ey sidaa darteed waxaa la samaynayaa wax la yidhaahdo hubin ama reconfirmation waxaana loo dirayaa ey kale oo confirm gareeya waxaan uu sheegay eygii hore inay dhab yihiin iyo inaysan ahayn waa guulaystay waa loo hambalyaynayaa shaquu qabtay aadanaha markuu shaqo qabtana waxay la mid tahay in abaalmarin la guddoonsiiyo farxadiisana waa haystaa meeshuu rabada waa aadaya baalkuu afka ku wato waa hadiyadii la guddoonsiin lahaa hadduu wax qabto shaqadiina waa qabtay farxadiisana waa dareemi kartaa laakiin waxaa dhiman in la hubiyo waxaan inay wax jira yihiin inaysan ahayn ey kale ayaa loo dirayaa si loo hubiyo eygii kale ayaa geli doona waa la kale experience-giisa ama khibradaha kala badan eyga arkaysa waxaa laga yaabaa inuu shaqaynayo muddo 5 sano ama 6 sano ah laakiin waxaa loo dirayaa mid khibradiisu 10 sano gaarsiisan tahay oo muddo qaraxyo ka soo shaqeeyay eyga aad arkaysaan waa askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida qofka shakhsiga garaam iyo xuquuq u leeyahay iyo ugu leeyahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybtii koowaad waa la hubaa boqolkiiba 9 waa hubnaa maxaa naga harsan 10 ayaa naga harsan 10 kana waxaa confirm gareynaya xilanka kale ee loo diraya hadda madaxweyne waxaa laga yaabaa inta shaqadan ay ku guda jirto laanta miina baarista booliiska Soomaaliyeed inay dadku yiraahdaan suuqii ayaa naga xiran ee dawladdan ayaa la dhibtay ciidankeeda wadada xiraysa laakiin ma arkayaan ninka naftiisa huray ee aadaya walxaa qarxa si naftooda uu badbaadiyo waxa la daahinaa waxa la qorayaa shakiga saacadda la arkay saacadda dadku ugu wardambeysay eygii hore saacaddu cadeeyay inay waxaas qarax yihiin eyga labaad ee loo diray saacadii la diray sababta ah markuu dhintay report ayaa laga rabaa ey ayaa dhintay kaliya kuma sinne waxay tagi doontaa ilaa heer maxkamadeed sababaha uu dhintayna waa la cadeyn doonaa madaxweyne ciidanka booliiska Soomaaliyeed shaqooyinka ay bulshada u hayaan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah haliyeyna u bareeray in naftiisa uu u biimeeyo sidii loo nabadgelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed laanta miina baarista booliiska Soomaaliyeed waa laan ku cusub laamaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sababtoo ah waxay la shaqaysaa duruufaha waqtiga uu keenay eygii labaad ayaa loo diray wuxuu u sheegayaa waxa loo tilmaamay inay baabuurka yihiin meel kale ma aadayo baabuurka ayuu aadayaa xitaa meelaha laga bilaabayo shaqada waa yaqaanaa albaabada qaybaha dambe waxay u dhigan tahay inuu helay abaalmarintii aaway waan helay abaalmarinteedii aaway waan ku hayaa isii abaalmarinteeda hadduuse abaalmarin siinin ma soo baxay abaalmarintii ayuu qaatay waa haystaa iimaw saaxiibkiisa ayuu raadinayaa qof kale ma aadayo saaxiibka asaga uu la shaqeeya keliya ayuu yaqaanaa cid kalena ma yaqaano farxad darteedna waa ujeedaa waa caddahay shaqadii
qaybtii ayaa waxay dhaheen qaraxa waa ku jira waa la hubaa sidee loo badbaadin karaa number 2 istaamiska la qaadayo gaariga lama gubi karo waa hanti Soomaaliyeed number 2 eeridii lagu gubay waa suuq hooyo Soomaaliyeed ayaa nyaaya ku gata hooyo Soomaaliyeed ayaa dukaan ku leh sidee loo badbaadin karaa ciidanka laanta mid baarista booliiska Soomaaliyeed way fikirayaan waxay ka fikirayaan sidii